dadka Soomaaliyeed waxay wax u tabcadaan sidii waagii hore wax u tabcadaan laakiin in wax laga bedelo dhul intaasoo kunoo hektar ay samayn jireen hektar gaabana laga samayn karaa intii waxaan aaminsanahay in beere smart ah oo loo sameeyo oo dadku ay kaga faa'iidaysan karaan waxaan runtii aad iyo aad rabnaa in dadka xoolaha in loo diyaariyo oo calafkooda iyo waxooda iyadoo laga fikirayo xilliga abaarta qaybta kalluumaysiga oo runtii aan rabno in dadka loo casriyeeyo qalab fiican loo sameeyo si ay laftirkeeda markay abaartu dhacdahay ay ogaan karaan inay alternative karato ay leeyihiin waxaa hadda ku soo kordhay adduunyada dabcan soomaaliduna runtii ay aad iyo aad ugu fiican tahay qaybta communicationka smartphone-ada telefoonada runtii in fariimaha looga faa'iideeyo ama hadday noqota digniinaha oo ay xaalad ay ku soo koraysay noqotahay fariimaha lagu gaarsiiyo ama inay xatee laftirkeeda aysan ahaynoo faa'iidada markaar loo sheego xilliga beerta dhacaya xilliga roobka dhacayo maadaama annagu aan qalabkii early warning-ka iyo systemkii adduunyada u dhaqmaya ay sugma haysato inay uga faa'iidayso